inkastoo kiiska Ikraan Tahliil uu si weyn daaha uga qaaday ismaandhaafka Farmaajo iyo Rooble, haddana waxaa la fahamsan yahay in aanay labada nin isku wacnayn muddo dhowr bilood ah. waxa ugu weyn oo la isku fahmi lahaa waxaa lagu sheegay arrimaha doorashooyinka. madaxweyne Farmaajo ayaa la diriiray ra'iisul wasaarihiisii hore Xasan Cali Khayre isagoo ka caraysan damiciisa madaxtinimo doonka ah, wuxuuna muddo 2 bilood raadinayay qof aan ku soo jeesan doonin oo aan musharax noqon doonin haddii uu ra'iisul wasaare u magacaabo. Rooble oo malaha qaatay heshiis noocaas ah ilaa hadda waxa uu diidan yahay inuu u tartamo xilka madaxweynaha. ballantii ahayd ha is sharixin iyo aniga dhis waxaa ka dambeeyay dagaaladii ka dhacay caasimadda iyo madaxweynihii oo laga wareejiyay awoodii doorashada. inkastoo uu Rooble weli ka bixin ballantii musharaxnimada, haddana waxaa si weyn isu bedelay jadwalkii uu Farmaajo u qorshaystay dib u doorashadiisa. Rooble uma muuqan waqti dheer nin raba inuu Farmaajo dakana u galo oo uu doorashada u boobo. tan iyo markii uu Rooble muujiyay inuu yahay siyaasi dhexda ka taagan loolanka doorashada, waxaa kor u soo kacday rajada dhinacyada kale. Farmaajo marna kuma qancin doorka Rooble uu albaabada ugu wada furay tartamayaasha. waxay ahayd sunno soo jireena inuu mar walba madaxweynaha xilka haya gacan weyn ku yeesho doorashada, laakiin hadda waxaan daawanaynaa mid taas ka duwan. Rooble waxaan si aan rasmi ahayn loogu arkayay inuu daacad u yahay Farmaajo oo uu isaga dhisi doono. xitaa Farmaajo waa si aamini karay arrintaas, laakiin wixii ka dambeeyay wadahadaladii uu Rooble la furay Sacuudiga, Imaaraadka iyo Kenya, Farmaajo waxaa la sheegay inuu ka laab xirtay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. wax walba ayaa sicirka isku shareeray markii uu dilaacay kiiska Ikraan Tahliil. hadda labada nin waxay kala fogaadeen masaafo aad u dheer. si walba oo hadda loo xaliyay khilaafkooda, waa adag tahay in Rooble lagu qanciyo inuu Farmaajo dhiso ama inuuba Farmaajo mar kale aamino inuu Rooble dhisi doono. taas waxay ka dhigan tahay in gorgortanka hadda jira uusan ku dhammaan karin arrinta Ikraan Tahliil, Bashiir Goobe iyo Cabdullaahi Maxamed Nuur. dhowr jeer ayaa lagu eedeeyay madaxweyne Farmaajo inuu fashiliyay wadahadallada xaldoonka ah. sababtu kaliya ma ahan inuu Fahad Yaasiin difaacayo, ee sidoo kale wuxuu Farmaajo xoogga saarayaa inuu gacanta dib ula galo maamulka doorashada. waa adag tahay inuu Farmaajo aqbalo inuu bannaanka ku sugo natiijada doorashada oo uu marti ka ahaada ayay leeyihiin dadka sida fiican u yaqaana habdhaqankiisa siyaasiga ah. marka la eego ahmiyadda maamulka doorashadu ku fadhiyo, waxaa adag inay si fudud ku dhammaato xiisadda hadda taagan. Farmaajo uma badna inuu aqbali doono inuu galo doorasho uusan wax talo iyo awoodo ku lahayn. Rooblena waa ku adag tahay inuu dib u soo celiyo maamulkii doorashada ee uu madaxweynuhu ku wareejiyey baarlamaanka hortiisa. sidoo kale saamilayda kale ee siyaasadda ayaa iyagana la aaminsan yahay inay ka hor imaan doonaan in mar kale la bedelo habmaamulka doorashada. tani waxay ka dhigan tahay inaan si fudud loogu gudbi doonin xiisadda labada nin. kooxda madaxweyne Farmaajo waxay sheegayaan inay u sawiran tahay natiijo guuldarro ah haddii ay galaan doorasho uu Rooble maamulayo iyadoo la wada og yahay wixii dhex maray muddooyinkii la soo dhaafay. waxay aaminsan yihiin inay qasab tahay inay miiska maamulka doorashada dib ugu soo laabtaan. maxay kula tahay?